بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وذي الكسر وهذا برنامج كنيري أبوان كيورة هذا فنانك وأنا على بيدن كسر قد بنو تلفزيون كقرن كجمهورية الصومال لان حرون تسمى لندن وحمان تمرتنا وجوا برنامج كأبوان محمد إبراهيم إسماعيل أو إنه فلانقين دون هدي الله ود اللي يرهدو هسه هورا لو قاضي أيو قاضين فنانين تي هورا ونطريان أبوان ذي هورا qaar dhintay iyo qaar noolba ay leeyihiin ilaahay ha u naxariista baan u leenahay intii dhimatay inta nool ilaahay cimrigooda ha inoo dheereeyo. maxamed ku soo dhawow TV-ga qaranka. oo mahadsantahay Caasha. hore inuu halkan ugu kulannay barnaamijkii kan ka horeeyay marka hadii ilaahay weyn inuu simo halkii baan ku sii anbaqaad doona waa si wanaagsan kulliba waxaynu maanta ku soo talagalay heesihii hore saan horeba u sheegay ee hore fanaaniintii hore u qaadeen in dhimatay in noolba ay leeyihiin intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inagana ilaahay inooga daba naxariistay loo wada baahan inta nool ilaahay cimrigooda ha inoo dheereeyo. waxaynu hadii ilaahay yiraahdo aynu geli doonaa heesahaas waxaynu kala soo bixi doonaa halmacoodkooda ku jira iyo qaab dhismeedkooda iyo aragtida iyo aqoonta beeyada ay u lahaayeen sida ay u dul marayaan bal hadaynu ku horeyno heesta ugu horeysa inoo soo qabo qoraansi mada صح taan jaalay magaalada ana khaldayna وسأل شخص الحريصة ولا وده بهاي إنه اليوم إنه هو سويه تبع أبوان ذا ما أنتي نريد شو إنه اليوم فنانين تنا بالشدة ده وحي كلهم قدرين مده كله كراحيس يدبع سنان تسوقان تانو كده جيسان إنما ها وحي كلو إنه يهين كيد أو أفصومال يقولوا ملها أنا بس نقبض دي أنا قبيلة ذا يجرار هذه هسي سوقان تهدان كتير أفصوم وأنا لقوا خصوصاً أفصومال بدون بالو ملها مركا وارونه وحنسلي هدي إلى هذا البرنامج كان هدي ونقسم وقت وصدح الصوت سأذو بشكتي إنه ساق على إنه وحأنه كبلا بينا هاس وسميه أبوانك قالقة حسن حاج عبد الله حسن جني دتك قاركينا حسن جني أو يقانان هاس تاني وحي كتشرت روايد لورين تشري بدار السبق بيك وقشا وحقاضي فنان كوين يعود كهلا سيقاله حسن هذا السمطر وذا تشير يو أمين عبد الله حرسي أمين السرقان أمين سرقان بالله أنا نستوي كله لكن دتك بدون كودين ويقانان الله أعلم فيلم مايو صح marka heesta waxa la yiraahdaa geeyga adigana mid begees ka daawada ayaa la yiraahdaa waayahay ya gahayliyo garuudii iyadoo gargoorne mayay kaxsanaayo dawlku usuuda helay dawlku usuuda helay دور وسوداني heestan Caashay waxaan ku doortay laba arrimood toore waxa weeyaan af Soomaaliga ku jira heestan waa af Soomaali aad culus oo ku salaysan mar dhaqankii ku salaysan marna ku salaysan quruxda bi'ada ama nature-ka dulkeena ku salaysan mar labaadkana waxaan ku jeclaystay habka ay u dhisan tahay heesto oo ma aha labada qof inay wada qaadayaan isu jawaabayaan ma aha waxaad moodaa inay tahay yani sheeko soconayso oo kale
oo matalan uu xasan sheegayo kale wixii ay qabanayeen aroortii gelinkii hore oo kale aaminina beydka labaad ay tahay matalan galabnimadkii oo kale wixii ay qabanayeen oo yacni saa isugu xidhan weeyaan haddaan ku horeeyo beydka hore heesta wuxuu yidhaahdaa gugiyaa gahayrliyo gaaroodi dixidii iyadoo gargoor la eg mayay gaxsanaa iyo dhowr goor gudguda miray barnaamijkii hore way ku jirtay roobkaa soo noqnoqonaya dhowrka cishe isku xiga da-aya wuu tilmaamayay waxa weeyaan haddaad maqasho meel hawd hawray dhir hawrtay kayma hawray haddaad maqasho geed baldhiiray ama galdhiiray haddaad maqasho waxa weeyaan waa biyo joogta ah waa meel biyo joogta ah ka dheregtay barwaaqada ilahi weeyaan heesaha dambe aanu soo qaadan doonana way ku jiraan heestu inay sugaanta heestu saxan tahay waxaa lagu gartaa heestu iyada isu markhaati furta ama heese kale ayaa u markhaati fura oo exactly wixii heestaasi ka hadlaysay bay ka hadlaan gugiya gahayrliyo gaaroodi dixidii iyadoo gargoor la eg mayay gaxsanaa iyo yani waxa weeyaan dixidu cawskuu fara badan yahay doomaarta maxaan ku idhahdaa darista dixida dureemada waxa weeyaan noocyo fara badan maadha tigaada yani oo de maadha waatan guryaha laga samaystaa cawsaskii waxa laga samaystaa ha iyadoo wada caws ah ay haddana magacyo kala duwan leedahay wayna kala markay baxdo way kala dheer tahay oo de matalan darista oo kale dhulka dooxada abay ka baxdaa waa ku ugu gaagaaban laakiin haddana haddii biyo joogta ay hesho oo aanay cagta dadka iyo xoolaha iyo dugaagu aanay marin de way dheeraanaysa dambe u dheeraanaysa marka gugiyaa gahayrliyo gaaroodi dixidii iyadoo gargoor la-eg dixidii gargoorkii soo gaadhay oo mayay gaxsanaa iyo dhowr goor oo gudguda helay waxaa kaloo ku jirta heestan oo aan kusoo aan iyana haboon inaan xuso barnaamij lagu qabtay jamhuuriyadda jabuuti oo ay ka qayb galeen saddexda madaxweyne ee madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo iyo xasan sheekh muumin xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya iyo ismaaciil madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ay af soomaaliga ahaa ayaa madaxweyne silaanyo wuxuu kusoo halqabsanayaa arrin aad u qurux badan oo ku saabsanayd dhaqanka marka reerku degayo layskama degi jirin dee uma baahna inaan ku celiyo kolle waa la daawaday siduu uga hadlayo waa la fahmaya laakiin heestan wanigii lahaa waa in heestu iyadu isu markhaati furta ama waa in dhacdooyin kale ama heese kale ay u markhaati furaan marka reerku degayo waxaa jira aroos marka reerku ama wiilku aroosto ama inantu aroosto ama odayga reerkuba uu aroosto aqalka meel gooni oo gaara ayaa laga taagaa moogta aqalka arooska marka gaaroodi gugiyaa gahayrliyo gaaroodi dixidii iyadoo gargoor la eg mayay gaxsanaa iyo dhowr goor gudguda helay oo aroos gooni degay oo sinta uu gubadku ku hayo iyo geesaha raah kaga ciyey yani waa barwaaqo oo xareed baa meel walba fadhida geesaha kaga ciyey macnihii waxay ku turjumaanaysaa halkana biyaha ka fadhiya xaggana biyaha ka fadhiya ilaa rahii wuxuu ka dhex ceeyaa biyihii absolutely ma garanaysaa oo godan madheedh lahoo midho aad ka guratiyo gaashaantay dhebi oo garabsaday galiyo maax waa biyihii ma garanaysaa oo buu yidhi oo hadba goosha badisa ee godol qaada yaa kaco oo gorof u hogeeyo oo kugu siiya gacan muxuu yidhi gorof loo hogeeyo kugu siiya gacanta yani waxaa la yidhaahdaa godol qaada hadba goosha badisay godol qaada kaca oo gorof loo hogeeyo gacan yaa kugu keeno kugu siiya gobannimo geygii adigana midba gees ka daawada halkan uu ku yaro noqonayaa waxa weeyaan godol qaadka waxa la yidhaahdo waxa weeyaan iyo badiska uu sheegayo waxaa jirta qofka aad kugu qaaliga ee aad jeceshay dooni maysa inaad doobi kala dhiman ama dee adiga geela xoolaha in general neefba neef buu ka caana badan yahay waxaa jirta geela hal hadhuubka mar iyo lababa buuxinaysaa jirta marka de qofka aad jeceshahay qaaliga kuga ah ee aad inuu marti kuu yahayna aad ku faraxsan tahay inaad soortana aad ku faraxsan tahay hadhuub kala dhiman u geed maysa hadhuub buuxa
qarka ka oo daadana xoorkii ma garanaysaa oo ku fadhiyaad u geynaysaa taana de waxaad ka helaysaa oo keliya hasha badisa nacam markii godol qaado waxaa la yidhaahdaa godol qaadku waxa weeyaan matalan bini aadamku inagu markaan wax cunno waxaa la yidhahdaa cuntadu qofka bini aadamka calooshiisa waxay ku jirtaa inta processku uu yahay 2 saacadood iyo bar ilaa 3 saacadood iyo bar meelaha jidhkana guud ahaan waxay ka baxdaa 6 saacadood ilaa 8 saacadood oo ay isu bedeshaa energy iyo de wixii dibadda kaaga baxay ee tegayay markaa qofkii energygii uu ka helay cuntadii iyo wixii muddadaasay qaadanaysaa xooluhu marka ay cawska cunaan ee ay biyaha cabaan de markiiba hadhow si loo istaagi maysid waa inay iyaguna waqti waa inay iyaguna waqtigooda qaataan oo dee caanageliyaan naasi waa inay caanageliyaan صح marka godol qaadku waa marka ay diyaar yihiin ee dee ay soo daaqaan ay soo hoydaan soo fiidkii hoydaan ay buuxiso ma garanaysaa ay diyaar ka tahay hadba goosha badisay godol qaada yaa kaco gurufka loo hogeynayaan de waxa weeyaan dhiilkii loo culaayay la culayay oo culaygii waxa weeyaan dee dadkan iminka kuwaas detergentka iyo wax walba ku meedhayaa may jirin berigii hore ee culay baa jira dhirgaaro inta culayga laga soo jaro hogeyntuna waxay ahayd inta god la qodo صح ayaa lagu shidi jiray oo lagu afgambiyi jiray صح marka uumiga kuleylka iyo qiiqaasi waxay dilayaan bakteeriyadii iyo wixii ku dhalan lahaa haruurka ama duubiga gudihiisa ku dhalan lahaa hadhowna de waad arka waa laga cidaadaayo car baa la yidhahdaa waxaa ku samaysma baa la yidhahdaa car marka ereyga cartir halkaasi ka timiyo waxay tiraysaa wixii residuegiiba lagu yidhahdaa af ingiriisiga ee gubnoodka ka hadhay iyo qiiqa ayay ka soo saaraysaa marka 2 sirood baa ku jiro nadaafad ahaan looma isticmaali jiray cudayga waxa kale loo isticmaali jiray wuxuu u sameeyaa oonta udgoon dhadhan wanaagsan oo uu sameeyaa ur macaanna uu u sameeyaa marka qofkii kugu qaaliga ahaa gorof aanad hogeyn halkan iska inta soo qaatid caaniga waa u soo cushaayo aad ka soo shaqaysaa exactly marka hadba goosha badisay ee godol qaada yaa kaco gorof u hogeeyo oo kugu siiya gacanta يعني قفك أنا شعلين ده قف بدو سو دي بيسا وارن هوجي necessary اللي بدو يصير قف كان يدرك سوي شيء جيسا صح مقرن إنسان لكن exactly لكن قفك أدون يصير إن أدون كيسو الله فريسة الله شيء كيسو وش كيسو أي أدون يصير هذا وقع عندك كسرت exactly مركا جروف له هوجيو gacan yaa kuugu keeno kugu siiyo gobonimo anigu personally yaa kuu soo qaado kuu keena oo kugu siiyo gobonimo geeyiga iyo adigana intuu iska kaa dhinac fadhiisto adigoo caanihii cabaya intuu mara saa isha kuugu yaraxado mara naturkii iyo de quruxda iyo debiga iyo midhaha iyo maxaan ku idhahdaa xareedda iyo rahaacaya mara daawada mara adiga ku daawada ayuu odhanaya waa wax aad u qurux badan heesta waxaan aad iyo aad ugu sii jeclaadaa أحلى الكلام لغة العيون باكرتي هيس لو رنشري وقاعد شري صلاح بن البادية مهما الكلام يبدع الجمال أحلى الكلام لغة العيون لبض قف مركي استعليهين أي إيجان إيج مداسي وحكي قالسن تهاي مرا كم كلمة دود والله يسكوي هذا أي كقالسن تهايو وحويا واحد شراء ثلبتي واحد شراء كونكشن لبض قف كان حيوت ثلباتيجا qof baad arkaysaa aanad gurigii aad u jooga aanad habi ku ahayn qofku sidoo u fadhiyo ama dadka uu dhex fadhiyo eegmadu ka garanaya inaad ku habeenayo qofku uu ka kacaya yani heerka marka dadka afgaradkooda uu gaaro waxa weeyaan waa heerka ugu sareeya ee laga gaaro waa indhaca shaqo igu eegayo anna waan arko ingiriisadii uga sawiyo wadnaha sidoo ku abuuray waxa yandara annaguna roos marka geeyiga iyo adigana midba gees ka daawada garo gu yar xadaya qofka markaad eegaysid kuma eegayo isagu dib waa kullu waa inuu windaadag iyo iska daawanaya mugti kor iyo hoos buu eegaya laakiin iyadu kulba hoosta ka eegaysaa markay aragto inuu soo eegay isha kale yar booliska markay dhinaca kale eegaysaa mugti beedka labaad ee marka ay u jawaabayso aamine ayaan ka dhicin waxay odhanaysaa galabtiina leydsiga waagii loo soo lisay oo ay isag fadhiisteen oo ay nasteen oo ay kala degeen
marka dadkani dad hawl diyaar u ahoo shaqo qabanayo maaha iyaga isku mashquulsan isku mashquulsan oo inay meesha nastaan oo raaxaystaan ugu talagaleen ay ku talagaleen galabtiina layrsiga bay odhanaysaa iyaday gamaankiyo lo-da geeska weyn iyo iyaday gamaankiyo lo-da geeska weyn iyo geel iyo ariguba geblan yihiin duleedkii afkaaga cana lagu qabay waxa weeyaan waa 4 meesin oo xoolo ah waa geelii iyo ishinkii iyo gamaankii iyo arigii afartii la haystayba ha dad waxa ka maqan uun dameerihii iyo ka maqan ma ogtahay marka waxay geblan yihiin de waxa weeyaan way buux dhaafiyeen waa barqadherig yacni hoganayaan hogashadu dhowr siyood bay noqotaa laakiin geblan yihiin waxay u dhigan tahay wixii daaqaya duleedka la mayracaya waa la mayracaya halkaas iska mayracanaya qolo waliba meesheeda wixii iska harsanaya ee geedaha ka hoos jira geedahooda iskaga hoos jiraan wixii ama la lisaya la maalayo ama ma garanaysaa hawshoodii halkoodii bay tuban yihiin marka galabtiina layrsiga iyaday gamaanka iyo lo-da geeska weyn iyo geela iyo ariguba geblan yihiin duleedka waana dee waxa weeyaan waa casar iyo maqrib dhexdood weeyaan soo yara xoroonayaan aqalkiina may soo gaadhin absolutely waa marka xitaa xoolaha marka ay dib loogu yara celiyeen yaroo la mayracayo ilaa fiidadow oo hore oo geri dhir daaqiyo garanuugo iyo cawl iyo goodir caar leh midba geeska joogo waa 4 koone waxa weeyaan waa physics iyo geography isku jira saddex muu soo qabsan afartii buu soo qabsaday oo geri dhir daaqay iyo garanuugo iyo cawlo iyo goodir caar leh waa midba geeska joogo waa 4 koone ayaa qolaba goonideeda inay u iskeed u daaqaysaa reerkan iyaga isku maqluushoon xoolahoodii qoladaasina dee nimcada ilaahay dhulka waray ayay ka noolaanayaan marka xikmadda ku jirta waxa weeyaan oo geri dhir lacay wuxuu xitaa kuu sheegayaa ugaar waliba nooca sida u daaqdiyo waxay daaqayso geri caws dhulka ka goosanaya arkimaysa laakiin geed dheer laacay dhirtana kaashiyaha la yidhahdo quraca iyo galoolka iyo ay ka baxda dhulka safaana la yidhahdo gerigu dhulkaasi ku nool yahay safaana la dhulkeenuna waa safaana oo geri dhir laaciyo garanuugo iyo cawl iyo goodir caar leh goodirkuna de waxa weeyaan midabkana like brownish grey ah dambas ramaadi iyo isku yara jira brown marka halkaa duudka ee dhabarka ayuu ku leeyahay liid weyn oo madow ayuu ku leeyahay oo waa goodir caar leh maaha caar leh hadduu noqdo wuxuu noqonayaa dameer dibadeedkii la odhan jiray farowga ayuu noqonayaa laakiin caar leh waa laynkii keliya buu qeexay ayuu qeexay iyo goodir caar leh midba geeska jooga oo dibi gadootay isku gaarufanayaan ereygaa gaaruf nin la yihahdo ina gaarufow iyo hebelow gaarufow baan maqli jiray heestaasaa iigu horreysay micnaha gaaruf markaasaan doonay oo dadka weydiiyo yidhi gaarufku waa maxay de markaan dhulkii joognay inan yaroo odayada waaweyn kamaan fogaan jirin had iyo goor dadka waaweyn ayaan saaxiib lahay especially dad fanaaniintiiga waaweynay nimankii de fanaaniintii waaweynaaye meesha joogay ninanaan isku wanaagsanayn muu jirin aan soo dhaweyn jirin iyo dee dumarkaba markay ku arkaan qof yaroo doonaya inuu dhaxal kala xado inaad tahay way ku hagar baxayaan marka dhulku meeshu waa carro guduud waa meel carro guduuda marka roobku do roobku wuxuu maydhaa wax kasta habaaska dhirta saaran buu maydhaa ee dhiifta ah dhagaxaantuu maydhaa buurahaasu soo maydhaa meel dhowr iyo 10 kilomitir jirta ayay daad horta ayuu dadku ka imanaya marka ciidda waxaa fusha labeen marka roobku qaado ee daadku tago ee dhulku biyaha liqo ciidda dusha waxaa ka fuusha labeentaasi waxa weeyaan ciid meel kale ka timid ma aha ciiddii waa ciid xaqa naas waa ciid maaha ciiddii taallay ciiddii meesha taalle maaha waa ciiddii daadku watayoo uu de kaga tegayo meesha marka garo oo ciiddii guduudneed way hooseysaa laakiin dusha labeen xayaabo oo kale ah ayaa daadkii kaga tegay marka dibidii markay isku gaarufanayso oo dibi gadootay isku gaarufanayaan ciiddii guduudnayd raafaha ku gooyeen markay dee dheragto waxaa ku jirtay maxamed cumar hubiye ilahan xariis jannaha ka waraabiyo barnaamijuu samayn jiro dalmer la odhan jiray ayuu u imanayaa
atiin khadrad daahiriya baa la jiliyay yaamin cabdilaahi iyo dacar iyo fanaanin noocaas iyo shamisa bakar guduudo iyo oranayo lo-du way kibirtay inta caana siiso lo-du way kibirtay eeg dirto ay eriyeyso soma daawan lo-du markay dherigto wax ka ilowshiyo dhow way isku carataa gees bay iskala daashaa marka oo dibi gadootay isku gaarufanayaan oo ciidii guduudneed raafaha ku gooyeen bal imaajin garee roobkii baa qaaday dhulkii xayaaba dusha ka saaran ceryaamo ayaa weli ku fadhida cirku weli wuu daahan yahay oo daruurihii madoobaa ayaa saaran waa cadar waktiga cadarka loo yaqaan sida cadarka roobko dhul cagaar la helay waxa weeyaan markaa roobkiina qaaday qoraxdiina aanay muuqan cirkii ay ku malaasan tahay daruuri that light very light and grey ramaadiga ah ama dambaska ay ku awdantaba cadar la yiraahdo waqtigaas cadar la yiraahdo marka ciidii wadarkaysa meeshii ay gooday casaankii iyo contrastkii quruxdii oo dibi gadootay isku gaarufanayaan oo ciidii guduudneyd raafaha ku gooyeen oo wuxuu yidhi oo kebed galoola inta geedka laga lulay ay gaaridu fidhayso intuu soo dhameeyey xoolihii iyo xayawaankii iyo ciidii muu dhaafin buu haddana dadkii u soo galay markaa waxaa lasoo galay dadkii ilan xoolihii buu ka sheekeeyey oo degaankii buu ka sheekeeyey oo roobkii buu ka sheekeeyey dadkii maxay qabanayaan dadkii maxay qabanayaan baa meesha imanaysa moogti marka oo wuxuu yidhi kebed galoola inta geedka lagu lulay ay gaaridu fidhayso oo googoos xariira ay tidcayaan gashaantay mid waad garanaysaa xariirtii lagu samayn jiray cawska iyo kabdaha iyo guriga gaaridu fidhayso oo naasoo gole iyo waqan suuqa lagu geentay kole adayga badiya heesaa loogu heesay adayga badiye waqan suuqa lagu geey heesaha u gaarka midba gooni loo yidhi geyigiya intuu gacanta ku qabsado geyiga adigana midba geeska daawo bal imagine oo leyr yar baa dhacayso oo roobkii bilaa trouble halkaasaa reerkii hablihii iyo dumarkii waxay ku mashquulsan yihiin cawskii iyo hartii iyo maxaan ku rahdaa kabadii bay samaynayaan xoolihii halkana qaar la maalayaa qaar waa la mayracayaa maxaan ku idhaahdaa xareedii iyo cawskii baa lagu jira marka labadeenu ilan shaqo inagu ma lihiin waynu intan gacanta ku qabsado kolba isha kugu yara hada ma garanaysa geyiga iyo adigana midba geeska daawada ya salaam yani waxaan eegaa waan idhaahdaa horena waan meeshan garayaan malaya waan soo qaaday xasan waa nin waxaan soo arkay dee qofku marka uu wixii uu garanayay uu goobjoog usoo ahaa ee uu indhihiisu ay soo arkeen iyo markuu buug ka akhriyey isku mid ma noqonaya dadku waxay idhahdaan heesahan dambe maxaa nuxurkii ka qaaday iyo maxaa macaankii ka qaaday iyo maxaa duxdii ka qaaday dee maxaa laga qaaday dadkani duxu mabay arag dhulkan iminka uu soo maray bugaanku intaas wuxuu soo jooga xaadir u soo ahaa wuxuuba u soo jooga iminka maxamed cali kaariye oo kale xasan genay oo kale deego ilaahay u naxariisto maxamed cali kaari uu inaga hooseeya inta dhimatana ilaahay u naxariista deego kale imka hargeysa joogo oo kale maxaan ku idhahdaaye hurloo dhintay ilaahay u naxariista raggan kulligoodba oo niman geli jiray soo wada ahaan jireen bayadina way ku dhexnaalayeen markaa magaaladuba way yarayd xitaa ifanka reer magaalka ihi intuu magaalada ku bahalkeeyo ku qaato iyo waqtiga uu reerka miyiga ku qaataa way isleekahay badankooduna iyagoo rag waaweyn magaalada soo galeen iyagaa badda ku odhanaya iminka markaad waraysato wuxuu ku odhanayaa meel gundur libax la yidhahdan ku dhashay meel cayngeed hoostan ku dhashay caynkaa la yidhahdo tog caynkaasaan ku dhashay mid qura ku odhanaya alleelahay axmed salmaan biddi ayaa hargeysa dhexdeeda ku dhashay intaan anigu kolley intaan taariikhda abwaanada hayo xasan qowdhanno waxa la yidhi wuxuu ku dhashay hargeysa dhexdeeda laakiin intaan hayo taariikhda abwaanada kale miyi bay ku wada dhasheen badankooda weliba miyiga hawdka bay ku dhasheen intooda badani de wixiina waa waxay aqoon u leeyihiin caashaan markaad soo qaado matalan heestan sida canabka beeraha oo kale abwaandheego kale markaad soo qaado dee qof magaalo jooga kama fili kartid feerna ma aha nin magaalo ku dhashay ama hargeysa ku dhashay oo Yurub soo galay ama isagoo 3 jir ama 4 jir halkan la keenay oo ku barbaaray halkan inuu ka shaqeeyo dhulkaas kama sugi kartid heestaa la quwad ah inuu keeno kama sugi kartid
laakiin iyaga naftarkooda waxa dee ku waajibay inaanay excuse ka dhigan oo aan odhan anigu ma garanayo miyimaan tegin rag waaweyn baa jiro magaalada joogo excuse-ka aan anigu aqaan oo excuse ka dhigtay anigu ma aqaan af Soomaaliga waaweyn iyo af Soomaaliga miyiga way jiraan aniga ila leegi abwaani badan baa aqaan anigu ba sax waaran exactly marka excuse ku noqon mayse anigu bada waliga habeen miyi kama soo toosin waraadi de haddana waan raadi oo wixii waad baranaysaa oo waad u tegaysaa dadkeedii baad u tegaysaa wixii ka geedo kulaba wixii hadii kugu jiraan oo hal abuur bato wax sameynaysid de wixii aad sameynaysaa waa inaad taqaanaa waa inaad ka daba tagtaa waa baaritaan haddaadan aqoonaad baadhaa exactly waa inaad ka daba tagto waa sax heestaasi waa hees laba beed oo kale leedahay laakiin de mucduun waa inaynu dadka u soo bandhigno yacni balaaqada Soomaaliga ku jira af Soomaaliga ilaahay ku manaystay abwaanka iyo quruxda midhaha af Soomaaligu ay leeyihiin afkeenu leeyahay waa sax inaynu isku soo bandhigno weeyaan ujeedadu marka heesta iyo ruwaayadaas oo heeso kale oo aad qurux badan ay ku jireen oo hees la yiraahdo Danbari oo adiguna aan ogeyn inaad u jeceshahay oo isla yani wax runa bay ka hadashaa runta wax runa exactly oo ay in yarban ka soo qaadanaya heestaas ay tiraahdo Aamina iyo Xasan baa wada qaada heestanna waliba Xasan baa leh laxankeedii music-ga ay tiraahdo Danbari adoo yaal cirkood doole ka onkoday beesha oo ah doog raac inta awrtu dabarli adna awrtu dabarli intay kaaga daateen labadaadii awr dilay balade dadka kale ku wada mucuun adiga labadaadii buu laga dilay marka hore awrtu waxay kaaga daadanaysaa waa ciidan xumo oo ciidan leedahay waa dabran lahayd oo wuxuu yiri inta awrtu dabarli adna awrtu dabarli intay kaaga daateen labadaadii awr dilay dusha waxaad ka rartana kolay tahay dameer hayn ma garanaysaa ruuxa ka dulguriye dariskii wax kugu tara reerkii ka dulguriye dariskii wax kugu tara markay dan ku haysa dadka kale ogaata intaas aad ugu muhiimsan yani haddii la yiraahdo malaha 10 sanood la isoo yiraahdo beedka beed dhigma soo samee ma sameyn karaan ma keenaysid yani waxay ku tusaysaa xitaa iscaawimada exactly waxa maxay ahaydeen waxa jirtay ruux bukaanka kugu nacado baahan ka tagi sabab kuma banaana yani marka reer nasab kuma banaana markii awrtaadii uu bahal cunay ciidan la'aan aad tahay reerkii dariskaaga inta awrtoodii rarteen oo fiidkii ka shubeen 10 kurey bay haystaan 10 kurey haysto de wixii ba laga raray jam ay guureen adigana halkii rafanayso iyo qofka kugu soo noqda the different waa qofku badbaadiyay way wax weyn abaar baad u dhimanay haraad baa kugu dilaya dadkina laga sameeyay cidlo lagaaga guuray geedka halka ka muuqdana ma gaari kartid mid kale dadkani wayba ku arkaan in xalay aaru soo dhacay beesho oo adiga labadaadii awr laba awr bareerku ku guura heestambo isla xasan ganileeyna waan ku soo qaadan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo awrka gurgur iyo awrka surrad waxa weeyaan awra waxa lagu qaadaa alaabta aan jajabayn ma garanaysaa cawska iyo dhigaha iyo kabdaha iyo ayaa lagu qaadaa awra waxa loo gureeyaa waayeelka dadka waaweyn iyo ubadka caruurta yaryar ayaa lagu qaadaa marka labadii buu ka dilay awood kale ma jirto dameerna ma haysto xitaa kolay tahay dameer exactly dadkuna way ku arkaan waana laga laakiin iska way ku dhaafaan hawl ku taala dadanaheeda iyo qofka yiraahdo aynu garanaysaa ku geeyno dararo garanaysaa marka heesta halkaasaynu ku ekaysiisanayna ka biximeen haddii isnaahno wada laga dhamaan ma shafar cishayna ku qaadanaysaa waa si wanaagsan maaye kulliba waa sidaad sheegtay laga dhamaan maayo waqtiguna mooyi waxay tahay marka kaleba macarare heesahan marka la galo iyo mucudan marka loo dhaadhacay maartay dhuuxa la gaadho buu iyo waqtigu isa soo guraya marka hadii aynu kulli waqti haysano waxaynu sheegi doonaa farsamo yaqaankeenna waxaynu ku darsan doonaa hal heesa oo kale heestaas hadaynu halka kaga baxno kulli ma saynu sheegno dhammaan kari mayno mucudeedana gaari mayno bal heesta inoogu xigta inagoo soo gaabsanayna waxaynu ku xijireynaa hees uu sameeyey abwaanka isaguna qaaliga abwaaniintu ma kala dhacaan ma sha Allah ilaahay inuu daayo inta dhimatayna ilaahay oo xariisto wada hadheeriyo waa asset waa national asset Soomaalidu meesha joogtaba waa hanti ay leeyihiin
waxa weeyaan maxamed aadan dacar heestan waxay ku jirta riwaayad la odhan jiray bad jacayl badana waan ku sameeyey waxaa wada qaaday ilaahay naxariisto jannaha ka waraabiye axmed mooge ilaahay uu naxariisto axmed mooge liibaan iyo sahar axmed jaamac fanaanada de boqorada codka heestan waxaa lahahdaa qooraansi adigoon kamuumiyo andayo bukaan qaabi umay muusanaa hadalooda admiga ida biciidka qudhaaciyo bulshada qalbiyo ay heestan أنا وأنشعل أنشعل ضد بدرنا ويقدر بدرنا واحد هذا بس لكن وحن كنت ذالي إنه وقتها هاي إنه سوكوب أدياد هستني ولب بيت وتجدد الدلعي وحيكون صعب سنتي وحويا قفك مركز تعيشها أد سحد دافع قفك أو تعيشها لكن قفك عمل لي كد يو تشاس وتشاس يا كأهاتو يسلويني ama dee aqoon daro ha ka ahaato aanu waxaan ku hayaba aqoon u lahayn ha ka ahaatee qofku aanu ku baqirsanayn complete ignorance garanaysaa adigina dee aad sakaraad tahay nafi ku wado qofkii dee wadanka sharci baa yaallo oo waa lagu xidhayaa ma garanaysaa haddaad ku dhigdhigto qofka marka waxay danta kugu kalifaysaa uun dibigaalaabayso dushaasoo ka qaba inuu dooqiinu ahaado oo qofkii ah daymadaasuun aad ugu qushuucdo waa sax marka heestu basically waxay ku salaysan tahay eegmada wuxuu yidhaahdaa adigoo qudh iyo maan qusur oodan qusurku waxa weeyaan natural qusurka waxaa la yidhahdaa matalan biyaha oo kale badda meelaha baa jira dhadhaabo iyo wax hoose ahoo ama dee ceelasha waaweyn lagu dabaasho xidido iyo dhulka inta kale ka hooseysa oo qofku hadduu galo qabsato oo lagu dhinto oo khatara ayaa la yidhahdaa qusur oodanna dee wuxuu ku sheegayaaba inay tahay meel oodan oo haddaad ama lugta la gasho ama madaxa la gasho aad tegaysid oo aanad ka soo bixi karayn marka wuxuu yidhahdaa adigoo qudh iyo maan qudhuna waa naftii maankiina waa miyir qaba un haddana naftaadii qusur gelinaya adigoo qudh iyo maan qusur oodan iyo halis dhiganayo qoorta oo aan qatoobayn qataduna de waa khaati daalka waa markay dhaafto exactly waa marka aad qofku yiraahdo khaati baan ka joogay ida laakiin da adigu ma joogaysid khaati ma qatoobaysid oo aan qatoobayn qabatime lugooyada waa lagu lugoynaya waa lagu ciyaaraya waa lagu bahdilayaa laakiin caadi bay ku noqotay waxaasoo dhan adiga caadi qabatime lugooyada markaasaa weliba qaashaareed kugu jira hay qaashaareedku markaa qaashaareedku waxa weeyaan kelmadda qaashaartay waxay ka timi qaash ereyga la yidhaha qaashku waxa weeyaan af soomaaligii hore berigii aan la aqoon birta iska daa qoryahan iyo banaatiikhdan iyo berigii warmaha iyo seefuu xitaan aanay ina soo gaadhin waa kumanaan sannadood ka hor waxaa lagu dagaalami jiray dhagaxa la qori jiray bahalkan flintka ay tiraahdo gaaladu ee iminka laga qodo archaeologistsku ay dhulka ka qodaan dhadhaabta dhagax shiilka dhagax dhexeedka ama dhagax shiileedka ayaa la garaaci jiray waxa loo sameyn jiray sida aarowga oo kale dabadna dee qor xoog leh ayaa la gelin jiray marka qaash qofku ka tusi jiray laa ilaaha illa allah maxamed rasuul miisaanka dhagaxa iyo qoriga xooga weyn ee wada socda dadka hore dad xoog leh ahaayeen wadnuhu ku goynaya marka waan qaashaartay qaashkaygii baan qaatay waan gaashaantay waan qaashaartay waan jeeni qaartay oo markaad marada dhexda ku duubato ka kala rido degta qaashaareed kugu jiro yani adigoo u diyaar garoobay dagaal hadda waad bahdilintay ka daali maysid qatoobi weyday markaasaa weliba qaashaareed kugu jira qabatime qaashaareed kugu jiro qabatime lugooyada qaashaareed kugu jiro marka wuxuu yidhaahdaa waxa iyana ku jirta kelimad qaali ah oo ah waxaan humbleka la yidhahdo ama la yidhaahdo qofkaas cawuhu dhulka ku haya deganaanshaha culayska miisaanka qofku isagoo wax kasta yaqaan haddana aan laga garan inuu wax kasta yaqaan waa dadka qofka ugu wanaagsan weeyaan qofka isagoo aan waxba aqoon isu haysto inuu wax kasta yaqaanaana waxa weeyaan waa waxa dunida rogay
dadka dunida rogay weeyaan ama maamul ha hayeenoo madaxa ha ahaadeen ama dadka suuqa joogaba ha ahaadeen oo wuxuu yidhi qalambaawinimadii iyo qurux lagaaga dheerayn oo qowl iyo moqol jecel yani waxa kuu dheer waxaasoo dhan yani dee dadka qaar baa jira qof ama isla waad fool xun tahay oo habranaya oo aan hablihii ku dhacayn waxaa jira nin faqiira oo jeebkii ciilay oo aan hablihii ku dhacayn waxaa jira mid iskaba fulay ah oo aan kalsoonidii lahayn oo aan hablihii ku dhacayn baa jira laakiin intaa midna matiida qalambaawi baa tahay adigu quruxu Allah ku dhameeyay ilaahay baa ku sankaana wad ka hadlaysaa waxa tahay almadarta markaa magaalo walba waxaa jirta group dhalinyaro oo shidayaasha ayaad ka mid tahay number 1ka marka qalambaawinimada iyo qurux lagaaga dheeray oo qowl iyo moqol jecel yani dee halkaas iyada ismacnaynaysa marka waxa weeyaan yani intaasoo dhan adigoo qaba bal haddana qaadanaysaa nacasnimadii ma garanaysaa qaashaarid kugu jiro qalambaawinimadii iyo qurux lagaaga dheerayn oo qowl iyo moqol jecel qoraansi eegmadu daymada baahida ma qaada yani qoraan wax kasta sidaad u jaleecdo ood eegto ood yani waxba وقنعران ما قادش باهيدي way ku haysa ama eeg ama ha eegin adiga kugu taaganta adigu si kasta ilaahay ku dhameeyay oo lagu bahdilay bay haddana eegmadaasi adiga ay naruura ku tahay inkastoo daani ku bogsiinay kuma bogsiinayso haddana dayn maysid waa qoosan weeydo qoosan waa qofkii wadeegaysa wuxuu yiraahdaa adigoo wuxuu yiraahdaa beedka labaad wuxuu yiraahdaa adigoo qamuyo qandhiyo bukaan qabin وما يقود كنا محن كويل هذا وأنقطوبين سيدا بعيد كقول عيو وهالشدة قلبي يعير واللولي ومركز اللولي تهاي قفكي كسايقة بستهادو ده دلنيرة دي مقرنة إسا واتكاقو إسا والدلنيرة دي هدي حتى وحي كشاكيني ينكوما عنتميا قفكي يقف إيادا كشاكيني أما كويل هذا وانصو أركي أما كويل هذا وان مستقام وطبتي ويان maxaan ku idhaahdaa oo dhididaya qabowgii baad dhididaysaa qabowgii baad dhididaysaa oo qarqaraya milcdi xanuun aan dadku arkeen baa ku haya ileen qof ilaahay kugu labahan waa lagugu loohan yahay waa lagugu maqan yahay lagugu maran yahay waay ma garanaysaa oo kugu mudan tahay qodaxdu qalbigaagu meel jiro wuxuu kugu mudan tahay qodaxdu oo qalbigaagu meel jiro يعني والقول هذا ليا لكن وكجود مريا هذا وكدافسين وكبردني كديش شرفت بك هاقاتي يعني بابا بك هادكتي وكوع يارتي إن ابتدا بان كوهينا إن هذا كوهلي إنك شوكته مر بإسلام بقوي من السنة أنا مجرد عليك عين كسنة يال وحكرتي إسماعيل الشيخ أحمد إسماعيل عقف إلى أن حرست جناك ورابية أيا قبل وتشعل بري اللور نشري maxaad hawd baan ku geenaynaayo hablihiinii inan laanka leeg baan ku baalkeenaynaa maxaa inanta ku daba wada marka wuxuu ku soo daray hees la yiraahdo lalaha laqan layliya tahay lalaha taladaada liitiya lalaha ma dadka laxaha tagay bad lalaha adoo luga la laafiyo marka wuxuu ka sheekeynayaa yani de dadku hadalka diin maayeen marka heestaasi inkastoo aan jeclaa inaynu si dheer oo qoto dheer aynu uga sii sheekayno insha Allah heesaha uu leeyahay maxamed aadan dacar barnaamij way badan yihiin waliba jacaylka dareenka ah waliba Soomaaliga cursina oo xambaarsan Soomaaliga cursina waxay ka mid yihiin dacar iyo maxasan gani iyo ina salaam bidde iyo nimanka aynu sheegayno maxamed cali kaariye waxay ka mid yihiin daraga إلهي كم exactly تعال كنا ده وكل صوب بيدقي أف سومالي كان إلهي كم الدين إلهي كم النستي صح waxa inta laga harayo intaynu haysanaba waa intaynu uga tageen iyo intaynu reebeenba ee lagu noqonayaa la sii maadartay si tarmaysa ma sii madhalaysa waa inta ay haystaan imika markaan kulaha heesto hadii ay waxaad sheegaysaa ay xikmadiin waxa ku marxaati ah heesta naftirkeeda ay marxaati furaysa heesaha kalena way ku marxaati furayaan imika geeyiga iyo adigana midba gees ka daawada iyadoo la wada hadlayn baa lees eegaya jacaylka halkaas ka unkamaya oo ka dhisan yahay
exactly the same thing qoraansiday eegmadu baahida ma qaata qofkii waad jeceshay waad eegaysaa you didn't say a word waa ishaas baad qofkii ka eegaysaa waana lagu ogayo dab baa kugu baxaya marka yani waxaad halkaa xaabaa kugu shidmaysaa كل بين تاك جيون مين محمد وهذا قصر كايو وقت قصاص وعرّة لكن إن شاء الله كل برنامج كذا ضمبي هدي راح يكدقوا أيه نكوس قاعدنا إننا كوانية كوا كلام بضمبا أنت إنه سلقرنا إنه معد كشرتو هدي له هي رهدو بل هاتنا إنه كان سوق بجبيسنو هدي له هي رهدو تواضير أنت وحنا قلنا ما هذا برنامج كي رجابوان كيو رهد فنانك وأنا يدين كسو تبينه تيفي قرن كسومالي لان حرنتي ساء مقالة لندن تاني انت انو دي بقول كل مدونا هو ده وحانو دي كغا تغينا سدا ايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته